kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaa maanta stuudiyaha nala jooga abwaanka weyn maxamed aadan dacar oo isaga uu yahay nin hibo iyo hoodaba ilaahay u siiyey falkinta suugaanta Soomaaliyeed haday noqoto dhinaca riwaayadaha jilida gabayada ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee bulshada Soomaalida inteeda badan u ciyaarto isla markaana ahaa heesa cod dabacsan oo codkiisa in badan ku raaxaysan jirteen tumana cuudka ama aalada music qaar kamid ah aaladahiisa bal waxaan maanta jeclahay inagoo barnaamijyada dambe kaga wareysan doona taariikh nololeedkiisii dhinacyada fanka iyo dhinacyo kale oo badanba bal maanta waxaan jeclahay inaan marka hore weydiiyo laba dhacdo oo midna ay tahay markii ugu horeysay ee uu caga dhigto magaalada Djibouti iyo waxyaabihii uu kala kulmay iyo bal magaalada Muqdisho aynu ku dambeyn doono bal dacar marka hore ku soo dhawow barnaamijka waxaad ka warantaa safarkii kugu horeeyay ee aad ku tagto jamhuuriyadda Djibouti ama magaalada Djibouti cali aad baad u mahadsan tahay waxa weeyaan waxaan Djibouti imaka hoosba hadal leh ay u doortay inaan bal ka soo qaato waqtigii ugu horeysay iyo taariikhda iyo nolol maalmeedkeeda ama dhageysiga waxaad moodaa imaka xagga dabayshu ama hogashu ay u hoorsan tahay inay Djibouti tahay jamhuuriyadda Djibouti oo ay ka socoto dhaqdhaqaaqyo badan sidaas aan u doortay inaan ka warramo maanta bal markii ugu horeysay Djibouti markaa waxay ahayd hada taariikhdu sidee bay ahayd anigu horta reer Geysanaha markii iyagana Faransiisku xukumayay inagana Ingiriisku xukumayay reer Geysaan mahayno Djibouti ma tigin iyadoo lagu tago isbaasiyaro lagu tago la yiraahdo 3 shilina ma tigin ilaa beriga bal amarka Ilaahay markii dambe ay gobonimada qaadanaysay waa kala qayb galay wax badan ma kala ilaa adbaantaagi xitaa waxaan anagu kolbaan idaacada ugu furay laan aftinkeliga oo heesaha sameyn jir dinkeliga nin Soomaaliyeed baa sameyn jiray oo dinkeliya oo la yiraahdo magotay kawli abdi jaac baa la yiraahdo abdi jaac baa loo Allahu naxariisto u dhintay marka intuu midhaha soo sameeyay dinkeliga ayuu noo dhiibi jiray kolkaasana codad ku sameyn jir kolkaasay idaacada laga saari jir de marka waxay ahayd iska ka kacabaynahay moogtay Soomaali la ilaa de waxaan ka garanay qaaraan anigu sameeyay oo qaadi rabita ruba way cadows war ay ku jirtay ya salaam gowli waxa laga yaabaa casharadaasi ma keenay Djibouti taale Djibouti taala Hargeysa oo idaacada Hargeysa la qaban jiray moojina Italian kale marka waanu ka kacabaan lahayn oo gobonimada qaato oo laba ka kacabaan lahayn marka bariyaha maaniman berigii dambe ayaan 83 baan shaqada ka tagay marka waxaan jeclaaday inaan ninku ma noloshiisa u qiyaasanaya inaan Djibouti iska tagaabaan doonayay marka oo caruurtii oo xagga u guuro marka anagoo socdo oo arsley barsoon dheendhe oo tigirkii wax walba soo gasay Hargeysa waxaan la kulmay fanaaniintii Hargeysa oo baxaysa oo suwaada 4 riwaayado kala daran sita hal loo Hargeysa joogay ee fanaanaha ee tiyaatarka joogay oo guuraya ma tirin karo ayaa la kulmo dabadatan riwaayadaha qaar ka dhinaa dad oo ku jiray ay yiraahdeen waan raacaysa aniga iyo 2-3 kale soo galay magaalada inagu dareenay waan raacaysa in cali kaariya markaa u ah madax xasan gani baa ku jira xasan xaaji cabdullaahi dadka meesha maraya de tira male abwaaninta actriska heesaaga muskista dabada taadu markii dambe meeshii waan nimi markaan dhinaca loo yacadan nimi ayaan waxba isyaray dhaafay waana loo diiday inaanu gallo magaaladii adoo amar xasan markaa dhinacaasaan ka dhignay riwaadihii halkii loo yacadee dhinaceeni iyo deganaa markaas halka u dhigtay magaalo Amrabe waa la imi jiray iyaga imi jiray dadka reer Djibouti waa dad dhaqanka iyo fanka aad u jecel oo ixtiraama way imi jireen halkaas aanu 4 riwaadood ka dhignay loo yacadaagteed halka dhinaca loo yacado ayaan ka dhignay adoo hadalaya kugu daalay markii dambe dib baan noqonay waan soo noqday marka 84kii ayaa Djibouti aan arko
ani iigu horreysay oon indhaha saaray waan maqli jiray dabadeetana berigaa riwaayad baan watay oon doonaya inaan ka dhigo riwaayaddii dabadeetaanoo wadaa waxaa dee fanaanin waaweyn u ahaa kooxda leela gacan macaan baan dabadeetana aan islahaad u dhiibtido caynkaaso dabadeetana waxaa ii yimi wou dhintay allah u naxariistay axmed mooge liibaan oo riwaayadda isagu ka ahaa actor ka ahaa bad jacayl badana isaga iyo boon xirsiyo jooga magaalada oon midna waxba haynin shaqo iyo waxba doona ka hayn ayaa ii yimi markaa nin kale oo koox samaystay oo isagu fanaanintan kale yaryar iyo wax isu keenay ayay la joogaan markaasay yidhahdeen riwaayaddiina sii hodheel baan ku degay anuu hodheel ku jiray riwaayaddiina sii riwaayaddeedi siin maayo xoolaba tanaan wataaye ordoo magaalada riwaayadde haa ma xoolo kaleba ma watee ta riwaayaddanaan wataa tanaan magaalada ka dhigayaa nimankaasaan dabeetana ninkii baa axmed mooge liibaanoo dee riwaayadda irankeedaba ahaa ayaa yidhi ma waxaad na siisanaysaa waxooga yaro adduunyaa waar riwaayadda waad na siinaysaa waxaan la dhigaynaa ninkaasoo koox yaro cusub dhigaysoo laydhaa jabuuti baan ayaan la sameynaynaa nasiib u yiri dabadeetana dee ninku hadduu nin weyn noqdo oo da-daa gaadho waa magac ilaalin uun manaafacaad kaa dhimay markaa dabadeetana waxaad sanaysa yaad ceeboobini maxaad samaysaa dee waayeyna mariya baan ku yidhi dabadeetana halkii baan adigu wax isaga keenkeennay oo dee dad urursan oo jabsan maaha qofba meel baa laga keenaya markaa adigu amar xaasir riwaayaddii sidii baan ku dhignay inantan imaka haldhaa faadima cali cilmi oo iga yaro horeyso riwaayad malaa iga horeysay iyana markaa dhigtayoo sangub iyo la dhigtay maxamed cabdillaahi ciise iyo la dhigtay khadra daari saalxaqaysa bisrada malaa riwaayad la dhigtay ayay yidhahdeen war inan baanu garanaynaayoo hay halkanay joogtaayoo hay iyagaa soo kaxiyey inantii baan dabad u dhiibno sidii baan adigu riwaayaddii ku dhignay oodaanu ka qaad dabadeetana markiiba caruurta xaggii baan kaga imaaya telefoon laygu soo dhufto adigu waan meeshii baan ka noqday mar dambaan haddana soo noqday waan keenay awkoombe iyo khadra daahir celi dabeetana berigaana riwaayad baan la dhignay la odhan jiray saddex baa isu faaqtay yidhahdeen taayada nala dhiga tiinu haydin dambeysay marka berigaana waan tegnay markaa waxaan ka wadaa jabuuti markaa waxa iigu dambeysay ilaa berigaa waxaan soo maray markii 90gii 90kii aan soo baxsanayn anoo koox wada ayaan soo maray oo fiisana wadan oo saa u kardhanayn marka haddii nala qabto oo nala celiyana waa ciribtayo waa gamo waa markii arrinku waliba uu ciribka isku shareeray telefara ka baxday dabadeetana kolkaana koox dhan baan waday oo kooxdii xaq ugu soo socotay badankeedu halka soo gashay ayaan wadayo anigoo waxba u sidin oo fiisay waxba toona hayn ayaan ka soo degay jabuutina sida kale maaha waa dad magaalo habaysan iyo dal habaysanoo sharci baa lagu soo galaa sharcina waa lagaga baxaa sida teena maaha cagta un la gelinaya iska soo bax nin waliba meesha doona ka soo geli ma soo geli karti dabadeetana bahali baana laga qaaday halkan gabaydha baa lagu yidhi annagoo yaaban ayaan dabadeetana nin wanaagsanoo uu dhintay allah u naxariistee madaxweynaha ismaaciil cumar geelle ay wala lahaayeen oo idris cumar geelle la odhan jiray allah u naxariistee ninkii ayaa waxaa la shaqeeya nin isna gobahaayoo dhintay miicaad miigana obsiiyey allah dabeetana miicaad iyo un baan maqlay iyo maxamed yuusuf isagoo dhintay allah u naxariisto riwaan dhigay allah annagoo maydhmayn kuwii baanu in wariye waan isku dhig goormaysu isku weyn markaasaan waran war caynkaasaa jira markaas waar dhegayso waxaan dadkan u hayaana sharcina ma jiro saas ahaa kuwiye ismaaciil waxaan ku geynayaa idris cumar geelle subaxii caawana kudheelkeega iska hub beri subaxii dabadiiga kaxeeyo meeshii baan tagay dhag 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 idris markaa
beri hore oo aanu markaa nimi oo koox kala wadi ruwaadan beeni warun oo dee fanaanin badan ay ahayd ayuu cabdulqaadir cumar macalin jubbe iyo qolooyinkaasuu qaadi jiray oo waan isku baranay markaa anagu maanaan kulmin dabadeetana kolkaasuu yidhi yaa markaasaan war waa caynkaasaan wadaa sharcina uma hayo haddii nala celiyene waa nalalaynaya ciribteeye waa gab laa ilaaha illa allah midnimaan quuri karaa markaasuu yidhi gambaleel unbuu taabtay qaar ma soo galay anime sidi baasaabuuradood imisa hadda hala siiyo lacagta sooma laga bixi lacagta intuu warqad qoray hudheelka dhag macsuumadda markaasaan ku yidhi dadkaasaan wadaayo wa sharcina uma hayo waana sidaa dee waxaan ku socdaa baashii haddii lanaga soo qabto waa markaa weli dawladdu may dhicin meel walba xoog bay ku leedahay marka dadku si ay u joogaan baa dee dooba nabad sugid loo soo daraya oo carabaha laga soo aftuubaya adoo diyaarad ku dhaysanaysa kolkaasaan ku yidhi waxaan ka baqanaya markaanu gadar marayno in dhexda nalaga baxo waxay dhigayso xaggaad ku socota waxaan ku idhan dadkan aan wadaa waxaan ku socdaa SRM iyo xaggaasaan u tallaabaya waxoogay alaab iyo inaan kasoo qaato gadar iyo meelaha kasoo dhigto ayaa doonaya qoladana markay riwaada ila dhigto dee magaaladoodii ha qabtaan dabadeetana wuxuu dhegeyso diyaaradda aad ku telefoonka wuxuu siiyey kiisa gacanta iyo ka xafiiska diyaaradda aad ku jirto uun iisoo sheeg buuri laa ilaha illa allah bal adigu diyaaradda aad ku jirto uun boqosiyay leedahay marka lasoo galee iisoo sheeg dabadeetana hadal yaan kugu daalinine Jabuuti aanan weligay ilaawi karin ayaa berigaa markaa ii samaysay amar xaasil dee cagta caarif baa wadee halkan aydu niman iyo ingiriis baydu tegi iyo meel baydu tegi qorshe ayaga kumay jira horta sidii baan ku nimi halkanoo anagoo yaaban waayaa waxaa dhacay dagaalkii ciraaq iyo kuwait dabadeetana anagoo magaaladiina riwaadii aan meeshaanu ka dhigi laynaa isku dhaqaashnay ayuun baanu fiisay halkan ilaahay uu noo fsahay sidii baanu ku nimi markaa waxaa ii raacday oon maanta markaa kusoo gabagabeynayaa magaalada Jabuuti iyo aragtideeda intaan uga wado hoosba hadal leh waxa weeye beri dhaweyd baan tegey magaaladii ayaan beri dhageetay markii ugaaska la caleema saariyey aniga iyo rag badan oo kale ayaa tagnay marka dadku waxa wanaagsan waa la isku hambaliyay wixii dib u dhacana waa la iska tilmaamay waxa la yiraahdaa halkaas caynkaas waan sidii nin riyoonaya ayuun baa mana Jabuuti aan qaani bahay Abu Dhabi iyo khiliijka oo kale ay waan yaabay marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanaa oon aad iyo aad u jeclaystay deriskaagu hadduu nuurku ku soo gaadhay aad buu ku soo gaadhay dadkaasuna waa dad dhaqanka jecel madaxdooda dhaqanka jecel iyaga shacbiga dhaqanka jecel marka magaalada Jabuuti iyo dalka jamhuuriyadda Jabuuti waxaan leenahay anagu hambali ha jiro aniga iyo dad badan oo kale imkaanaynta dad ku nool ee fanaanuun ku nool wixii aad garanaysay iyo caalamka oo dhan geeska Afrika iyadoo hoos harsanay dee marka waxaan leenahay waxaan inaan dee noolaan doono iyo in kaleba mooyaane